Soomaaliya vs Djibouti doornimadani waxay soo jiidi doonaa labada wadan ee deriska ah Djibouti iyo Soomaaliya waxayna wada ciyaari doonaan ciyaar xiiso badan kana tirsan tartanka Sakafa Senior Challenge Cup 2019 waxaana tartankan sanadkan martigelinaya dalka Uganda xulkeena Soomaaliya kulan koowaadna wuxuu la ciyaari doonaa dalka deriska ah ee Djibouti ciyaarta waxay soo gali doontaa 7 saac bar waxayna ka dhici doontaa garoonka KCC ee dhacay wadanka Uganda Soomaaliya Djibouti isla sanadkan kulan saaxiibtinimo ay wada ciyaareen hal gool iyo eberna waxa ku adkaatay dalka Djibouti kulankan wuxuu noqon doonaa kulan caalami ah oo tartanka Sakafa ka tirsan Soomaaliya waxa sanadkan matalaya xidigo wax ku ool ah kuwaas oo laga keenay qurbaha salamadana xuriyalka Soomaaliya Premier League xidiga ayaa laga waday hadaba marka aan ka tagno faaqidaada kulankaasi sidee u arkaan shacabka reer Muqdisho kulan ciyaareedka u dhaxeeya xulalka Djibouti iyo Soomaaliya waa kuwan qaar kamid ah aragtidooda dhiibanaya kulan ciyaareedka weyn magacayga waxa waay Cabdiraxmaan Ali Geedi maanta waxa ciyaaraya xulkeena qaranka Soomaaliya wuxuuna la ciyaaraa dhigiisa Djibouti maanta waxa jecelahay in xulkeena qaranka uu guul weyn gaaro oo ah 4 gool iyo eber taas oo rajeynaa xulkeena waa Cabdiraxmaan Umar Ahmed aragtidayda hadaan ka dhiibtay kulanka Djibouti iyo Soomaaliya u dhaxeeya hadii saadaalin aan ka bixiyo waa laba bismillaah wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa bacd salaam magacayga waa Salma waxaan u rajeynayaa xulka qaranka Soomaaliyeed inay gurigan u soo hoyaan dalkooda iyo dadkooda in magac iyo sharaf u soo hoyaan insha Allah guul u rajeynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعبد الرحمن محمد عبدي هذا أركتي قريب تحولك الصومالي وحوك صبرون دونتا سدحي هل مقعي ويونس حسن عبدي ما أنت واحد رجينا قرنك الصوماليات ساداش واحد رجينا إن كبضيان لبقول يوحي كبضان واحد رجينا قول صوماليا قول استبراد مقعي حسن علي قيسي عيارت ما أنت حارجينا إن كل ما ضد هالي إيور حلو مقعي عبد الرحمن يوسف آدم وحرجينا صومالي إن لبي هالكبضي دونتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مقعي يا نور محمد قورة ما أنت ما دام ودينا حلقنا الصومالية وحرجينا قول هنا أكون بدي دونه أفريقيا أنا مقعي سدعان سكرنا عبد الرحمن أحمد حلق الصومالية حرجينا إني سدعي هالكو بدسو kuwaasi waxa ay shacabka reer Muqdisho oo aragtidooda dhiibanayay Soomaaliya Djiboutina 7 saac bar ay soo gali doontaa Cabdi Fataax Abdirashiid Abu Kanaani Go TV